بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبين وناكسن ميل كستا جوجتان كسر هذا برنامج حبين نمو وحبين أربعة بحيث لبض بش أكتوبر سنة كلبض كل لبضتني أفرق وضبط برنامج كتكون مغلي دونتان وحكمدا إيران وإسكودي سكور إنتان للدلين حقاهيه جود إيروك حسب الله حسن نصر الله هنا كسرت لبنان معلومة هذا إنك جهنا يوربحنا ديرادة وهذا صوب بحية حماسنا وحي شيءتين مسؤول كيهين هالقلكي كدعي تل أبيب طبعا كإسرائيليين تلقود لي ururka xisbullahna waxay maanta geysteen howlgallo ballaaran oo ay ku dileen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka kumaandooska Israel. Sidoo kalena waxay fuliyeen howlgallo ay ku qarxiyeen taangiyadii Maarif. Macluumaad dhameystiran ayaan idinkaga haynaa. Howlgalladaas waxaa fulinaya guutooyinka hubeysan ee ururka Xisbullah ee Radwan. Warbixin gaar ah ayaa iyaguna ka maqli doontaan oo idin faahfaahinaysa waxa ay yihiin guutooyinkan hubka haystaan iyo xilliga la aasaasay. Qodobadaasi wararka ugu dambeeya caalamka ay maqli doontaan mar kale soo dhawaada. aan ku horeeyay wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 3 ilo oo Iiraan ah ayaa sheegtay in hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ali Khamenei uu uga digay xogayaha guud ee Xisbullah Hassan Nasrullah uuna ka codsaday inuu ka baxo Lebanon maalmo ka hor inta aan lagu dilin duulaan Israel ku qaaday. Wuxuuna Khamenei aad uga walacsanaa waqtigan xaadirkan isku dayda Israel ay ku doonayso in ay ku disho hogaamiyahan saro muhiimka u ahaa. Mid ka mid ah ilo wareedyada oo ah sargaal saro ka tirsan Iiraan ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in isla markii 17 September la duqeeyay aaladaha isgaarsiinta ama la qarxiyay aaladaha isgaarsiinta ee ururka Xisbullah. In Khamenei uu fariin u diray ergeyna u diray uuna ka codsanayay xogayaha guud ee Xisbullah inuu ka baxo Lebanon aadana Iiraan. markaas oo la sheegay in Iiraan diyaarinayso qorshihii uu hogaamiyahan sare ee ururka Xisbullah uga bixi lahaa Lebanon. walaaca uu qabay Khamenei ayaa la sheegay in tim kadib markii Iiraan ay xaqiijisay in wakiilo u shaqeeya Israel gacsaarna la leh hay'adaha sirdoonka Israel inay ku dhex jiraan ururka Xisbullah kuwaas oo markaa qorsheynayay howlgalka lagu dilayo Hassan Nasrullah. Sargaalka la hadlayay wakaalada wararka ee Reuters ayaa intaa ku daray in ergeyga loo diray ama wakiilka ka socday Ali Khamenei hogaamiyaha sare ee Iiraan inuu ahaa taliyihii sare ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan Abbas Nilfarshan kaasoo Nasrullah la joogay goobta lagu duqeynayay ama ay ka dhacday duqeynta Israel la beegsatay waxaana la dilay taliyahan sare xilli uu la joogay xogayihii guud ee geeriyooday ururka Xisbullah Hassan Nasrullah. sargaalkan sare ee ka tirsan Iiraan ayaa sidoo kale Reuters u sheegay in Ali Khamenei uu tan iyo Sabtidii toddobaadkan ku sugan yahay meel ammaan oo aad amnigeeda loo ilaaliyo. wuxuuna sheegay inuu ahaa qofka soo saaray amarkii xalay lagu weeraray Israel laguna tuuray ilaa 200 gantaal oo nooca plastigada ah bersoniga ah ee Iiraan. ilaalada kacaanka Iiraan ayaana ku dhawaaqay weerarkaas inuu jawaab u ahaa dilka Hassan Nasrullah iyo taliyaha la geeriyooday ee isla ilaalada kacaanka ka tirsanaa ee Abbas Nilfarshan. sidoo kale Iiraan ayaa sheegtay inuu jawaab u ahaa madaxii xafiiska siyaasadda Hamas ee lagu dilay Tehran daqiiqadii bishii July Ismaaciil Haniye. inta hadda uga soo tagnaa qodobkaasna ururka Hamas gaar ahaan guutooyinka hubeysan ee Al-Qassam ayaa markii ugu horeysay sheegtay in ay mas'uul ka yihiin weerarkii shalay ka dhacay Tel Aviv kaasoo lagu dilay in ka badan 10 qof oo Iiraan 18 kalena lagu dhaawacay. weerarkaas ayaana hakii ugu weynaa ee tan iyo 2000 ay Falastiiniyiintu ka geysanayaan Tel Aviv iyo mid ka mid ah weerarada ugu khasaaraha badnaa ee soo maray Tel Aviv halkaasoo ugu yaraan 10 Israa'iiliyiin toogasho lagu dilay. Al-Qassam ayaa war-saxaafadeed soo saareen waxay ku sheegeen in howlgalkan ay fuliyeen Qassamiyiin ama xubno ka tirsan guutooyinka hubeysan ee Hamas iyo Al-Qassam kuwaasoo magacyada lagu kala sheegay Maxamed Rashid Miski iyo Ahmed Abdul Fattah Al-Hayumi oo ka soo jeeda magaalada Hebron oo ah magaalo ku taala koonfurta daanta galbeed ee la haysto. war-saxaafadeedka ka soo baxay Al-Qassam ayaa lagu sheegay in labada mujaahid ay gudaha u galeen deegaanka mana aysan wadan wax xub ah balse waxa ay toorey ku dhufteen askari ka tirsan ciidanka Israel oo kuwa ammaanka ah goobta joogay waxayna ka qaateen qorigaas oo ay ku fuliyeen toogashada iyo dilka 10 Israa'iiliyiinta ah. mid ka mid ah waqtiyada ugu argagaxa badnaa ayayna soo martay Tel Aviv waxaana xigtay weerar weyn oo horey uga dhicin Israel oo Iiraan ay xalay ku qaaday. bishan October ayaa ku bilaabanaysa bil u dhiig badan ka daadanaya Israel iyadoo sanadka horena sidoo kale weerar la yaab lahaa ay ururka Hamas dagaalyahanadooda gudaha ugu galeen qaybo ka mid ah dhulka Israel ay haysatay koonfurta ku yaala xadka la leh marinka Gaza. ururka Xisbullah ayaa dagaalyahanadooda gaar ahaan guutooyinka hubeysan ee Radwan waxay maanta fuliyeen weeraradii ugu horeeyay tan iyo 2006 ee dhulka kuwii ugu ballaarnaana loo diiwaan geliyay. intaan u gudagalin weerarka dunida hadal haysa ee lagu dilay ugu yaraan 7 sargaal ee ciidamada kumaandooska ahaa aan ku horeeyo warbixin kale oo isla ka soo baxday ururka Xisbullah oo ku sheegeen inay burburiyeen 3 taangi oo nooca loo yaqaan Markafa oo Israel leedahay. hor October ka horena taangigan waxa Israel ku sheegaysan inuu yahay kuwa ugu casrisan taangida adduunka yaala balse Gaza ayaa lagu arkay taangigan
iyo waxa uu ka goyn karo dagaalka, halkaasoo muuqaaladii xamaas ay soo bandhigayeen tan iyo waqtigan sanadka ku dhow ee dagaalku socday ay ku burburinayeen. balse ururka xisbullah ayaa markii ugu horreeyay gaaray inay taangiyadan 3 ka mid ay burburiyaan. mid kastoo taangigan ka mid ah wuxuu joogaa 3 milyan, taasoo ka dhigaysa in mar horeba ay taabanayso khasaaro dhimasho iyo maalba leh Israel. sidoo kalena xisbullah ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay inay burburiyeen oo ay qarxiyeen guri ay iskugu yimaadeen ciidanka Israel. waxaa intaa dheer inay sidoo kale ay sheegeen inay gantaalo la hago ay la beegsadeen goobo ay iskugu yimaadeen ciidanka Israel. way noo soo socotaa howlgal kale oo aad looga dareemay gudaha Israel oo isla xisbullah ay fuliyeen. balse intaynu u guda galin aan ku horeeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shir la qaatay madaxda wadamada G7 oo ah wadamada ay hogaamiyaan wadamada reer galbeedka iyo xulafadooda. G7 ayaa waxa loogu yeeraa wadamada dhaqaalaha ee adduunka. shirkan uu Biden la qaatay xubnahan ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa isku dubridka jawaabta caalamiga ee weerarkii Iran ee ka dhanka ah Israel ee xalay ay gudaha Israel Iran ay ku qaaday. waxaana ku jiri kara jawaabaha ka imaanaya Mareykanka iyo xubnahan G7 suurtagalnimada in lagu soo rogo cunaqabateyn cusub Iran. madaxweyne Biden iyo madaxda kale ee ka qayb galay wadahadalka ayaa cambaariyay weerarkii Iran. madaxweyne Biden wuxuu sheegay in Mareykanku si buuxda u taageersan yahay Israel oo ka go'an tahay in la sugo lana xaqiijiyo xasiloonida iyo amniga Israel ayaa lagu yiri war-saxaafadeed uu baahiyay aqalka cad ee Mareykanka. ergeyga Israel ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu maanta hadal ka jeediyay fadhiga golaha ammaanka yeeshay. wuxuu sheegay Iran waxay bixin doontaa qiimo culus oo la xiriira weerarkii ay xalay ka geysatay gudaha Israel. cawaaqib xumada ka dhalan karta weerarkii Iran ay ku qaaday Israel waxay noqon doontaa mid ka weyn sida la malaynayo, ayuu hadalkiisa ku daray. balse haddaynu dib u raacno hadaladii ay soo saareen saraakiisha sare ee Iran, wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ahaa xubnihii maanta hadlay ee Iran, isagoona sheegay isku day kasta oo Israel ay ku weerari karto gudaha Iran inay cawaaqib xun ka dhalan doonto, isla markaana jawaab ka culus weerarkii xalay inay ka bixin doonaan isku day kasta oo iskugu daydo Israel inay ka jawaabto weerarkii argoosiga ah ee Iran ay xalay ka fulisay gudaha Israel. sidoo kalena wasiirka difaaca Iran ayaa isaguna sheegay in isku day kasta cunaqabateyn lagu saaray Iran inay tallaabo ka dhan ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan danaha iyo joogitaanka bariga dhexe wadamada saaraya inay qaadi doonaan. xiisadda bariga dhexena hadda waxay u muuqataa mid si dhab ah olol lugaha ula galaysa sababa la xiriira inay hadda ka gudubtay iskahorimaadiyadii u dhexeeyay Israel iyo kooxaha Iran taageerto. markaanse waxa si toos ah isku arkay waa Iran iyo Israel. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta ku dhawaaqay inuu gargaar bini'aadanimo Ruushka u diri doono Lebanon. wuxuuna cambaarayay duulaanka halkaa ka socda, isagoona ka digay xaaladda bini'aadantinimo iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara duulaankaas. duulaanka Lebanon ayuu ku sheegay inuu noqon karo baasiinkii ku shumeeyay colaadda ka jirta bariga dhexe. wasaaradda arrimaha dibadda Ruushkana waxa ay ku sheegtay xiisadda faraha kasii baxaysa ee bariga dhexe fashilka Mareykanka iyo maamulka Biden, oo ay tilmaamtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka inay ka tilmaamkacayso xiisadan kor u socota ee walwalka leh, isla markaana isku bedeli karta xaalad weyn oo aan la qaban karin, in ay salka ku hayso fashilka iyo dhinaca uu Mareykanku ka noqday xaaladaas. dhinaca reer galbeedkana hadda waxay u muuqdaan inay xoojinayaan joogitaankooda bariga dhexe, iyadoo madaxweynaha Faransiiskuna uu ku dhawaaqay in ciidamo dheeraada iyo maraakiib ay u diri doonaan bariga dhexe si uu yiri loo taageero Israel loogana hortago dhaqdhaqaaqa Iran. tani waxay ka dhigan tahay inuu hadda Faransiisku si rasmi ah ugu lug yeeshay colaadda, isagoo markii horeba taageerayay Israel. waxaana la xasuustaa in Abriil markii Iran ay weeraray Israel in diyaaradaha Faransiisku ay door weyn ka qaateen difaaca Israel. balse weerarkii xalay ayaa uga duwanaa weerarkii Abriil in wargelinta ama ogeysiiska la bixiyay uu ahaa waqti kooban, ama dhinaca Iran wargelinta ay samaysay inuu ahaa waqti kooban oo diyaar garow ama abaabul aan la samayn karin oo ah xulafo in la diyaariyo sidii dhacday Abriil oo difaacda Israel. telefishinka Al Jazeera ayaa ku waramay in Iran si hore looga baran ay weerarka u qaaday sabab la xiriira inaan hore loo ogeyn weerarka xilliga uu dhacayo. waqtiga ay soo baxdayna in Iran wax weeraraysana waxaa xigay in gantaalada Iran bay ku sii jeedaan dhulka Israel ay haysato. markaan waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo warbixintii diiradda ku saaranay howlgalka Israel sida weyn looga dareemay ka dhanka ciidamada Israel kadib markii gootooyinka hubaysan ee ururka Xisbullah ee Radwan ay ku guuleysteen inay beegsadaan saraakiil sarsaro ka tirsan ciidanka Israel, gaar ahaan ciidamada loogu yeero commandos unugooda Egos oo ka hoos shaqeeya taliska qaybta 98aad. waxaa loo arkaa inay yihiin unugga ugu muhiimsan ee dagaalada dhulka iyo diyaarinta qorshayaasha weerarada, iyadoo marka la beegsanayay saraakiishan sare ee ka tirsan unuggan ay ku jireen
howlgal ay ku qiimeynayeen dhulka koonfurta Lubnaan oo ciidanka Israa'iil ay isku dayayaan inay gudaha u galaan sidii la yiri halka lagula dagaalamo ururka Hezbollah. Balse maanta markii ugu horeysay ee dhinaca Israa'iil laga arkay khasaarihii ugu weynaa ee ciidamada Israa'iil ka soo gaaray koonfurta Lubnaan tani wixii ka dambeeyay dagaalkii 2006. War-saxaafadeedii baahin ciidanka Israa'iil ayaa lagu sheegay in saraakiil darajooyin sare haysta oo ilaa 7 sargaal ay ku geeriyoodeen weerarkaas. 39 kalena way ku dhaawacmeen. Askar ayaa dhimatay balse lama soo bandhigin dhaawacay askarta tiradooda. Afhayeenka ururka Hezbollah Maxamed Afifi ayaa isna war-saxaafadeed soo saaray wuxuu sheegay in dhimashada badan ee soo gaartay ciidamada Israa'iil ay qarinayaan warbixinta ka soo baxdan ay tahay warbixin aanan xaqiiqo ahayn marka loo arko buu yiri khasaaraha ka dhashay iskorimaadkii maanta ay galeen guutooyinka hubeysan ee Radwan ee ururka Hezbollah iyo ciidanka Israa'iil. Haddaba su'aasha ayaa sidee weerarkan u dhacay? Afhayeenka Hezbollah Maxamed Afifi ayaa soo bandhigay sidoo weerarkan u dhacay. Wuxuu sheegay inay jireen ciidamada Israa'iil gaar ahaan guutada commandoska ah ee August oo ay hogaaminayeen ugu yaraan 7 sargaal iyo tiro askar ah inay isku dayeen inay gudaha u soo galaan xadka koonfureed ee Lubnaan tuulooyin ku yaala balse markiiba dhaqdhaqaaqan oo ay kor kala socdeen guutooyinka hubeysan ee ururka Hezbollah Radwan waxay isugu diyaareen dhismo ku yaalay goobta. Ciidamada Israa'iil ay hogaaminayeen saraakiishan ayaana la sheegay in gudaha u soo galeen dhismahaas markaas oo markuu iskahorimaadku bilaabmay sida uu sheegay afhayeenku. Inta iskahorimaadka socdayna ciidamada Hezbollah gaar ahaan guutooyinka hubeysan ee Hezbollah ee Radwan waxay adeegsadeen bombooyin madaafiicda garabka laga tuuro iyo qoryaha darandooriga u dhaca. Mid ka mid ah howlgalladii ugu muhiimsanaa ee fuliyaana ayuu ku sheegay inuu howlgalkan ahaa mid weyn oo dhibaato gaarsiiyay. Waxaa laga arkay wajiga Netanyahu kadib markii uu soo baxay isagoo sheegay in ay la dagaalamayaan Iiraan iyo cadow garbinaya ama dhinacooda joogo ku sheegay inay doonayaan inaysan qof Israa'iiliya noolaan. Wuxuu tilmaamay waqti adag inay ku jiraan balse ay bixin doonaan jawaab ku filan. Markaas oo tacsi u diray qoysaska ciidanka iyo saraakiisha ka geeriyooday. Diyaaradaha qamaatiga u kacaya la arkayay iyagoo iskaga daba laabanaya goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ee jiidda hore ee koonfurta Lubnaan. Ma jiro hadda ciidan Israa'iil oo gudaha ku sugan dhulka Lubnaan waxayna hadda la kulmayaan ciidamada Israa'iil iska caabin aan hore loo arag. Sababtoo ah waxay ka hortagayaan guutooyinka Radwan oo ah kuwa ka duwan guutooyinka Qazzam ee gudaha Gaza kuwaas oo mar horeba iska caabin xoog leh khasaaro weyn gaarsiiyay ciidanka Israa'iil. Balse marka loo eego awoodda guutooyinka Radwan wax badan ayay ka duwan tahay guutooyinka Qazzam ee marinka Gaza ku sugan. Sababa la xiriira tirada askarta fursad ay u haystaan inay meelo bannaan kula dagaalamaan ciidanka Israa'iil iyo hubkooda casriga ay ku jiraan gantalada la hagi karo madaafiicda goobta oo loola jeedo kuwa awooday inay burburiyaan dhufaysyada iyo madaafiic la hagi karo oo rida gaaban kuwaasoo si ka duwan marinka Gaza awooda in taangiyada Israa'iil aysan awood u lahayn inay si nabdoon gudaha ugu soo galaan koonfurta Lubnaan sababa la xiriira inay masaafo fog ka burburin karaan guutooyinkan hubeysan ee ururka Hezbollah Radwan taasoo u suurtagelinaysa hubka haystaan. Haddaba hadda isweydiinaysay maxay yihiin guutooyinkan waana maxay cududoodan sideese ugu soo gashay howlgalladan iska caabinta ay hore loo arag inay kala hortagaan ciidanka Israa'iil. Aan ku siiyo aas-aaska iyo awoodda guutooyinka Radwan ee ah guutada ugu muhiimsan ee ururka Hezbollah. Ciidankan ayaa la aasaasay intuu socday dagaalkii Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan sanadkii 2006 waxaana loo yaqaanay ciidamada faragelinta degdega balse magacooda waxaa loo bedelay ciidanka Radwan ama guutooyinka Radwan sanadkii 2008 kadib markii la dilay hogaamiyihii Imad Muqhayna oo Israa'iil ay ku dishay Febraayo 12keedii 2008 howlgal ay ka fulisay gudaha Lubnaan. Ninkan ahaa hogaaminayay guutooyinkaas ayaa markii dambe loogu magac daray kaasoo naastiisu ahayd Xaaji Radwan waxayna sidaa ku qaateen magaca Radwan. Ciidankan ama guutooyinkan hubeysan ayaa ujeedooyinka loo dhisay waxay ahayd inay kor u qaadaan awoodda weerar ee Hezbollah iyo in ururka Hezbollah uu yeesho guutooyin horumarsan oo awood sare leh oo awooda in ay fuliyaan howlgallo dhulka oo isaga caabinayaan Israa'iil oo ay ku jiraan inay fuliyaan howlgallo ay gudaha u galeen xuduudda iyo dhulka ay gacanta ku hayaan Israa'iil. Inta badan warbixinada la soo bandhiga ayaa lagu sheegaa in mid ka mid ah ujeedooyinka loo aasasay guutooyinkan ay ahaayeen inay qabsadaan gobolka Galiilida iyo inta badan gobolka waqooyi ee Israa'iil haysato. Awoodda ciidamadan Radwan ama guutooyinka Radwan ayaa haysta qalab casri ah oo ku jiraan gantaalada lidka taangiyada, diyaaradaha duuliyaha lahayn, qoryaha waxshiishaha ee awoodda u leh inay goobaha fog toogasho ka fuliyaan. Sidoo kalena guutooyinkan ayaa haysta noocyada hubka garbaha laga tuuro, kuwa darandooriga u dhaca, kuwa gaadiidka la saaray ee madaafiicdu ay ka dhacaan iyo nooc kasta oo hub oo loo baahan yahay in guuto dagaalanta ama howlgallo dhulka fulisan ay haystaan. Guutooyinkan ayaa ka qayb qaatay dagaallo dhowr oo ka dhacay xadka u dhaxeeya Lubnaan iyo Israa'iil
waxayna la dagaalameen ciidanka Israa'iil marar kala duwan waxayna qayb weyn ka qaateen howlgalkii military Hezbollah ee ka socday dalka Syria halkaas oo ay ka barbar dagaalameen ciidamada Syria ee Bashar al-Assad ciidanka Ridwan ama guutooyinka Ridwan ayaa cutubyo geeyay Halab Syria sanadkii 2016 waxayna ka barbar dagaalameen Hezbollah iyo dhaqaaqa al-Nujaya oo ka dhanka howlgalkii lagu la dagaalamay Daesh bishii March 2017 ciidamadan waxa laga saaray dagaalka waxaana dib loogu celiyay koonfurta Lebanon waxaana la geliyay heegan sare marka laga hadlayo howlgalada ka fuliyeen Syria waa marka waji naxariis darro ah ay soo muujinayaan guutooyinkan kuwaas oo la aaminsan yahay in boqolaal kun oo Sunniyiin ah ay ku laayeen deegaanada ay ka dagaalamayeen ee dhulka Syria mana ahan kuwa laga jecel yahay Halab iyo gobolada ay degan yihiin Sunniyiinta ee gudaha Syria sabab la xiriira xasuuqii ay guutooyinkan ka geysteen dhulka Syria markaas oo ay ka barbar dagaalamayeen hogaamiyaha Syria Bashar al-Assad ciidamadiisa marka laga hadlayo awoodooda ciidan guutooyinka Ridwan waxaa ka mid ah dagaalyahano khibrad sare leh kuwaas oo qaarkood ka dagaalamay meel ka baxsan Lebanon waxaana inta badan ku sugan yihiin jiidaha hore ee dagaalka dagaalyahanadooda ayaa tababar ciidan iyo mid jireedba ku qaata gudaha Lebanon iyo dibadda waxaana inta badan loo diray Iran si ay u helaan tababar heer sare oo ay la qaataan ilaalada kacaanka Iran ujeedaduna waxay tahay inay khibrad ciidan ka helaan bartaana sida loo isticmaalo noocyada kala duwan ee hubka iyo in la kordhiyo awoodda ay u yeelan karaan inay iska cabin waqti dheer galaan jir ahaan iyo maskaxaanba iyo xeeladahooda dagaal inay noqdaan kuwo khibrad ku dhisan Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadan ay gaarsiisan yihiin kumanaan kun balse ma jiro tiro dhab oo la hayo iyadoo inta badan la sheegay in Hezbollah ay leedahay in ka badan 100,000 oo dagaalyahan kuwaas oo diyaar u ah inay dagaalamaan ciidamadan dhaqaalaha ku baxa waxa bixisay dawladda Iran halka Syriana ay fududeyso soo gaarsiinta hubka maadaama uu yahay marin muhiim u ah oo ay ka heli karaan hubka noocyadiisa guutooyinka Ridwan ayaan ahayn guutooyin lagu tilmaami karo kuwa u dagaalamaysa jabhadii balse waxay awood u leeyihiin si dhameystiran oo military ahaan inay dagaal u galaan sabab la xiriira khibradooda dagaal tababaradooda inay leeyihiin guutooyin commandos oo gaar ah oo awood u leh inay nooc kasta oo dagaal dhulka ah galaan weerarada loo baahan yahayna goobaha dagaalkana ka fuliyaan sidoo kalena waxay leeyihiin khibrad ay ku dagaalami karaan nooc kasta oo hub iyadoo maanta la arkay in ay u diideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xogta aruuriya iyo kuwa kale ee dagaal ee aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil inay gudaha u soo galaan koonfurta Lebanon sidoo kalena waxa la sheegay inay beegsadeen diyaaradaha qumaatiga oo ka ciidanka Israa'iil kuwaas oo ay ku qasbanaatay in masaafo ka fog dhulka Lebanon ay ka daabulaan meydadka iyo dhaawacyada qaarkoodna ciidamada ayaa la sheegay inay u dhinteen dhigbax daran kadib markii ay waxyeello weyn ka soo gaartay weerarkay la galeen Hezbollah gaar ahaan guutooyinka Ridwan sabab la xiriira in la beegsanayay isku day kasta oo gurmad loogu fidin karay afayeenka Hezbollahna Maxamed Afifi wuxuu sheegay iskorimaadiyada iyo howlgallada ay maanta fuliyeen ciidamada Ridwan inay yihiin bilow balse ciidamadan ay leeyihiin awood weyn ay ku burburin karaan isku day kasta oo ciidamada Israa'iil isku dayaan inay gudaha Lebanon lugta soo geliyaan wuxuu intaa ku daray inay diyaar garow weyn ku jiraan balse Israa'iil ayaa sanadihii u dambeysay waxa ay beegsanaysay saraakiisha sare ee ciidankan iyadoo taa uu ku jawaabayna afayeenka Hezbollahna wuxuu sheegay inaysan wax saameyn ku yeelan oo ciidamadan ay ku jiraan waqtigooda ugu wanaagsanaa awoodna u leeyihiin dagaal waqti dheer ah inay la galaan awoodda ay leeyihiin guutooyinka Ridwan ee ciidanka ururka Hezbollahna waxay ka dhigan tahay in laga filan karo koonfurta Lebanon iskorimaadiyo waaweyn oo ka dhici kara oo u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo guutooyinkan barnaamijka habeenimo intaas inoo weeg haduu eebedmo intaanu barnaamijka xiga ku kulmin doono wararka iyo warbixinada isla xilliga dhacayaan waxaad kala socon kartaa barahiga Facebook iyo Telegram oo aad ku heli kartid Imaan Jaamac intaanu mar kale kulmayno sidaas iyo amaana Allah